booliiska magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway ayaa casuumaadii ugu ballaarneed abid waxa uu u diray waalidiinta iyo dhalinyarada waxbarata ee ku sugan magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway. Booliiska ayaa sheegay in casuumaadan ama kulankan uu dhici doono maalinimada Axadda oo ay bishu ku beegan tahay 19 bisha Oktoobar marka saacadu tahay 5 galabnimo ee xilliga magaalada Oslo. Kulankan ay booliiska isugu yeereen ardayda iyo waalidiinta ayaa noqonaya kii ugu ballaarnaa ee ka dhaca guud ahaan dalka Norway, waxaana ka soo qaybgali doono in ka badan 90,000 oo arday kuwa oo ku sugan gudaha magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway. Arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay dhacdooyinka soo laalaabtay ee dambiyada xoogga leh ee ka dhacaya dhalinyarada iyo da'yarka ku sugan magaalada Oslo iyo guud ahaan dalka Norway, waxaana xusid iyo xusuusinba mudan oo ay kulamadan daba socdaan dhacdooyinkii loo adeegsaday qaraxa ee ka dhacay magaalada Oslo iyo sidoo kale magaalada Lillestrøm, kuwa oo loo adeegsaday bamgacmeedyo ay ka dambeeyeen dhalinyaro aad u da'yar oo qaarkood 13 jir ahaayeen. Xildhibaanad Julia Riemen oo ah xildhibaanada baarlamaanka u qaabilsan dhanka waxbarashada ayaa sheegtay in ay muhiim tahay kulankan oo lagu dejinayo istiraatiijiyadda bulshada maadaama arrinta soo noqnoqotay ee dhalinyarada faldambiyeedyadoodu ay tahay mid saameyn xoogan ku leh guud ahaan bulshada. Waxa ayna sheegtay in baraha bulshada iyo dijitaalkaba aad loogu isticmaalo dhalinyarada lagana qorto loona adeegsado faldambiyeedyada sii xoogaysanaya ee ka dhacaya guud ahaan dalka Norway. Waxayna sheegtay in ay muhiim tahay xildhibaanadan in kulankani uu dhaco sidoo kalena waalidiintu ay wax badan ka bartaan maadaama ay yihiin dadka ugu dhow ee booliiska kala shaqayn karo in la hakiyo ama la yareeyo dambiyada dhalinyarada da'da yar ka dhacaya guud ahaan dalka Norway. Kulankan ayaa sidoo kale waxaa iska kaashanaya hay'adaha booliiska iyo hay'ado kale oo ka shaqeeya arrimaha bulshada degmooyinka ay ka kooban tahay magaalada Oslo iyo sidoo kale hay'adda waxbarashada, waxaana kulankan loogu casuumay waalidiinta iyo sidoo kale ardayda wax ka barata ee dhalinyarada ah kuwa oo ku sugan magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway. Kulankan ayaa la rajaynayaa in waalidiinta wax badan laga fahansiiyo loogana sharxo arrimaha dijitaalka iyo social media ama baraha bulshada si ay ubadkooda ula socdaan dhaqdhaqaaqyada ka socda iyo sidoo kale natiijada ka imaan karto faldambiyeedyadan sii xoogaysanaya ee kasoo askuma baraha bulshada ee laga dhiirigeliyo ama laga hago dhalinyarada. halka warka kuwooda ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.